السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن انت صباح التهاي ما aragtay دور وناكسن انت دور التهاي دمانتين وان اذن سلامي سلام قاريا كشكي لابتك سوقودي اين سوق قادو دافع عالمك انت جوكتا تاقيريا شيدا انت انعدنا اسكالوغي يان ليهاي ما aragtay عاي مجرتو ميشا ما aragtay عايدها لاسكدافو meeshan oday weyn baa yaa maaragtay hadlaya odayga weyn hadaad weynadiisa aad ku ixtiraam galin weydid iskaga bax inagoonaan maaragtay aniguna aanan ku baloogin adiga oo nabada iskaga bax waxba ha dhageysan hadalka Axmed Bashiir anigu maaragtay kaale u dhageyso kuma oranayo laakiin maaragtay fikradahayga aan sheegayo maaragtay waad ka soo horjeedsan kartaa laguma qasbayo maaragtay fikradaadana waa dhiiban kartaa telefoonka xitaa waa inii soo qori doonaa waxa weeyaan maanta kulli barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay Leopoldska Somali State anagu waxaan ugu baaqaynaa baaq dheer aan u soo jeedinaynaa horeyna waan ugu sheegnay Leopoldska Somali State hooya dhashay xaas buu leeyahay ubad buu leeyahay aabiyo hooyu leeyahay aabaha iyo hooyada laba jeer kuma dhali doonaan anagu taan ku sheegnay taa weeyaan Leopoldska Soomaalida dhagaa furta Leopoldska Soomaalida dhagaa furta hooyada laba jeer kuma dhalayso marbay ku dhashay ku soo korisay aad ma aragtay noqotay taam noqotay ood ma aragtay Leopold noqotay hooyada dib dambe kuma dhalayso Leopoldska Soomaalida u dhageysta hada meesha la idin soo waxa la soo dhigtay Leopoldska Soomaalida in dabka lagu shubaa la rabaa way dhamaadeen wixii lagu shubay kale ciyaalkii oromada saad wada ogsoontiin way is wada dhiibeen oo ma aragtay oo la faysu dhiibeen qaarna ma aragtay way dhinteen Allah yarhamu maaragtay lagama gaarsiinayo luuska Soomaali iyaga u dihinan oo maanta Mustafa Cagjar uu banaanka soo dhigtay Mustafa Cagjar ubadkiisa meel buu dhigtay wiilashiisa meel buu dhigtay bal car wiilashiisa ha u diro juntada uu ummadda Soomaaliyeed u sheegayo ila wiilal buu leeyahay ma wiilashiisa war Mustafa Cagjar wiilashaadu ha galaan car hadaad nintaay ubadkan masaakiinta dadka ka galaafan dad masaakiina dhalay Leopoldkan laga yaabaa dadkaasi maaragtay in lahaayeen berri buu wax noo qabanaya oo maaragtay wax noo taraya oo maaragtay Leopoldska u soo galay ubadka ha ka halaagin ummadda anu taan ku leeyahay Mustafa Cagjar oo taawiyeen Leopoldska dib dambe looma dhalayo runta anu inii sheegi Leopoldso meeshan waa lagu kala guuray Leopoldso hadaad aqli leedihiin oo aqli inigu haray meeshan waa lagu kala guuray wax yar baaba haray direyska iska daadiya inta ay imanayaan xooga dimuqraadiyadu direyskaba iska dhiga oo ma aragtay meel kale isaga guura laakiin dagaal baan galayna hadda tiraadin waxa weeyaan ubadkiinu way gablamayaan naagihiina ma aragtay dadna qurux badan guursatay kolka horeba gaadmaad ku jirtay oo lagu gaaday ها ناقا قرقبخ بدن ninkii guursada kulli gaad buu ku jiraa moogta kulli adoon dagaal ba gelin waa lagu gaaday rag baa ku gaaday moogta naag qurux baa hadaad guursatid kulli rag baa ku gaaday rag baa dhimashadaada uu sugayay war goortu ka dhiman tani goortu meel ka tagay tanida haya Mustafa Cagjar dan inigama leh hadaad wax maqlaysaan weeyaan Mustafa Cagjar dabka inuu inigu shubo dib ugama joogsanayo aqli hadduu inagu haray anagu ummadda Soomaaliyeed Leopoldska Soomaaliyeed mar horena telefoonaan inii soo qoray oo war telefoonada kala xidhiidha dariiq baa la idin saari oo maaragtay si fiican dariiqa la idin tusayaa mas'uuliyiinta Leopoldska Soomaaliyeed telefoonka ha wacan baan telefoonkii qaar baa wacay qaar ramayna weyn baad dhageysto ragacay waxaan intii maaragtay daba dhilifka faashista Abiy Ahmed taageerayay iyo wacay telefoonka dadkii aan meesha ugu talagalay laakiin ma ayna soo weyn telefoonka haddana waan inigu soo celinaynaa telefoonka bartaas la idin soo saari waxa weeyaa Leopoldska Soomaaliyeed hooyaa ku dhashay aabba ku dhalay ubad baad leedahay laga yaabaa inaad gabadh yar aad guursatay laga yaabaa inaad ubad hadda ku dhashay ha ka gablamin aan runtan ku sheeg hooyada laba jeer kuma dhalayso aabbaha laba jeer kuma dhalayo dabka aad iska arkaysiin ee holaca in la rabo in la inigu shubo iska diida iska diida haddaad doontid direyska iska dhiga
magaalooyin kale isaga kaca laakiin dabkaasaan galaynaa haddaad tiraahdiin looma ooyaan baad noqonaysaa liu boolis oo ogsoonow liu booliska oromiya waad arkaysaa 6,000 baa isdhiibay shalay oo quraad 6,000 oo liu booliskii oromiya waxay isu dhiibeen OLF ay isu dhiibeen adigu ma liu booliska oromiyaad ka aqli fiicanta kolka adoo Soomaaliya aad leedahay dariiska intaan qaad yaad soo dhimanaysaa bilkaadiyo ilaahay baan kugu dhaariyay TPLF intay meesha qabsatay iyaa la maqlay wax Somali state la yiraahdo wax Oromo state la yiraahdo wax Anfar state la yiraahdo TPLF intay qabsatay Soomaa wax la maqlay amxaara 100 sano war dariiq yarmay noo dhistay ilaahay baan kugu dhaariyay iska dhaaf yani jiritaankayga ma ogolay jiritaanka inaan anagu Ethiopian nahay amxaara ma noo ogolay maanta liu booliska u dhimanaya dadkaasi muxuu yahay ma Anfar baad noqotay inaguna Anfar hadda way ka soo noqotay saako arkaysa ma malaynayaa maxamed yaaya wuxuu sameeyay ciidan dhan buu sameystay oo maxamed yaaya waxa weeyaan ya Anfar dimuqraasi haylooj baa leeyahay waliba waxa loogu magac daray Lucy adagayso Lucy army baa loogu talagalay ayaa la yiri maartay kuwa Anfarta war ma amxaaradii waxaan ogahay noo geysatay oo maantana rabta inay dib noogu soo celiso wixii ay noo geysatay iyo dhiigaaga u shubi ilaahay baan ku dhaari adoo Soomaaliya ilaa Soomaalidu waa dad wax kastoo iska garanayaan war ma amxaaradii jiritaankayaga aanan ogolayn iyaad maanta dhiig u shubi adoo Soomaaliya abara junde way deedo adan anagu dimuqraadiyadaasan taageeraynaa xoogga isbahaysta ay wataan dimuqraadiyada ka qayb gal liu boolisow hadduu aqli kugu jiro telefonkii haddana waa la inigu soo celinayaa telefonka waa inii soo qoraya haddana ma aragtay telefonka kala xidhiidha ma aragtay dariiq baa layni saari meel aad ma aragtay halka aad ka gashaan baa layni saari telefonka mar labaad baa inigu soo celinaya waa kii hore aad dhegeysta waa kii hore uun mar labaad baan laakiin inigu soo celinaya meesha inigu soo qoraya waca telefonka ninkii ma aragtay telefonka ha ka cabsanina aniga aamina telefonka dawladda Itoobiya shaqo kuma leh habaqin inta tira waa la dhageysanaya sheekaynta tira waxa ay dhageysan aniga aamin ilaahina aamin cid ku dhageysan baan jirin ma aragtay waa telefon caadi baad ula xiriiri kartaa ma aragtay mas'uuliyiinta dimuqraadiyadda isbedelka ma aragtay Itoobiya ka wada si direct aad ula xiriiri karaysan telefonka hadda idin soo qorayaa telefonka kala xiriira si dariiq la idin saaro aad ma aragtay doorta waa la isgargaaraa balaad dhageysta taa haddaad samayn weydaan telefonka dhaarti dhaweyd still I have to reveal or bal sug hadda waan ku soo celinayaa sug saa ugu jiro waan idin soo qoraya telefonka haddana waan idin soo qori telefonka waca ma aragtay kala xidhiidha mas'uuliyiinta aad karaysiin waa liu booliska Somali state waxba isku cadibin dhiigaaga yaan la xalaashan oo naftanya xalaashan ha amxaaradii weligeed baa ma aragtay tumi jirtay dhiigaaga yeelan xalaashanin aanu tan ku sheegay ha dhiigaaga yeelan xalaashan hooyaad leedahay aabbaad leedahay ubad baad leedahay dhiigaaga yaan la xalaashan xidhiidha balaad dhageyso telefonka hadda idin soo qoraya telefonku waxa weeyaan وكان تلفك وين سو توري تلفك كوعة او ما aragtay kala xiriira meel balinsaari dariiqa la idigu hagaajin waana taa sameeysan hadaad leediin de ma aragtay
haadku hay cuno haddaad leedahay xaggaa iyo TDF ta usii kaco kolkaa de waxa ku qabsada haad baa ku cunaya laakiin aan waxaan ku leeyahay adeer meeshan waa lagu halaagmay ay isku tagina ana yeelina haddaad leedihiin dee maaragtay haadku hay meesha isku aadina waad arkaysaan canfar wixii ku dhacay canfar wiilasheedii waa la kala aasi kari laayahay maaragtay wiilasheedii meeshii bay ku dhammaysay maaragtay inaguna inaad saan noqotaan waa laga fiican yahay waa haddaad damiir inagu jiro oo dadnimo inagu jirto weeyaan waa dhegaysta kolkaa telefonka waca kala xidhiidha maaragtay kala xidhiidha hay-adaha ay qusayso dariiq baa laydin samaynayaa dariiqaasaad tagaysaan baa dhegaysto maanta inama Soomaali baa u dagaalamaya maaragtay amxaaro ceeb bay tahay waa ceebay tacaal weeyaan oo waliba Soomaali ah canfarta iyadoo waan arkaynaa iyadu meesha martay waan arkaynaa laakiin Soomaali baa u dagaalamaysa no way Soomaali marnaba uma dagaalamayso naftanya iyo wax la jira marnaba uma dagaalamayso Soomaali waa dad xataariina canfari laakiin meesha way ku dhimatay kolkaa liu booliska anagu waxaan leenahay maaragtay telefonka waca maaragtay mas-uuliyiinta liu booliska telefonka inaad wacdaan ood maaragtay kala xidhiidhaan siyaabaha aad meesha u tagaan daraad imika telefonka waan soo qoray daraad yaa la xidhiidhay ku jooga shinii la jooga oo maaragtay coronela iyo kuwa coronelo jooga jigjiga jooga iyaa telefonkii wacay oo maaragtay iyagu waxay taageersan yihiin faashista Abiy Ahmed bay taageersan yihiin warka waan la soconnaa laakiin dadka daacadii waa inaad wacdaan telefonka ood maaragtay dariiqaysa saartaan taa nooranaya taa weeyaan ha ku halaagmina meeshan already waad arkaysiin dhulkii waxa lagu soo Dabra Burhaan baa maanta yaa sheekadu taagan tahay Dabrasiiniyo waxa way dhaaftaa Dabra Burhaan bay taagan tahay Dabra Burhaan dabadeedna waa magaalada Finfinne Addis Ababa weeyaan dadkiiso ma nimanka amxaarada ee 100 sano intayna guumaysteen war dariiq yar dhisi waay hadda dariiq yar may dhiseen xaarkooda meesha ka buuxi waraadeer intay TPLF meesha timid baan dimuqraadiyaan aragnay wax isbedela iyo ma aragtay guryo la dhisay iyo jidad la dhisay iyo wadan kobca TPLF intay timid baan ayaan aragnay saaxiib yana been isu sheegin laakiin maanta hawaawi bay noqonaysaa siraad iyo mililik siraad naas ma lisaalin faashista Abiy Ahmed ko heeno miloko beeta mangista minas kamade mililik askamade ku hayla silaasi nas kamade ku tufi ilman oromo raqab oromo gaafa sanu beeku qabdisla gaafa inni haylan mililik masara mootuma qaysa daragaysan gaafa san oromo silaaqa u qabdi amamti ninka bal fikradiisu ay taa ku jirto ee kule jigjiga waxa xukumi ma aragtay ninaan u dhalan baa xukumi maxayga ninaan u dhalan baa xukumi kule adeer ilaahay naguma soo celiyo Colonel Abiyood Kaasahun ilaahay naguma soo celiyo ma aragtay inkaar Allah ku rido jahannama Allah geeyaan leena nagu naftanya nagu soo noqdo marnaba ma aqbalayn ama Soomaaliya noqdo عفرت انت يا نفتنيا ربتي ما رتي من اللي ودانسي زي وعلى شو العيار ها عفر على شو العيار بك ده بحسمي بلد ريسو كل كانوا وحلنا لو بوليسكا ان مارتي كل كسوماليات ان دبكا سن ادينا حتى ليدهين او حاسسكينا كتغيسان سيفرا ها إلا دمر كده مهر أنت تكون قبطان دجال بانجلي هاورن مالك اللجوء قاضو هالكا يمارك تحوق إسبايس اللجوء قاضو صدق هذا طلاق قاضو تسي نيكلا يسكت جورسته هذا نيش شيء
haddaad le maya ee anigu kama dhimanayo hooyaday kama dhimanayo aabbahay kama dhimanayo islaantayda kama dhimanayo ciyaalkayga hadday kugu jirto dirayska iska tuur runtu taa weeyaan xoogagaa isbahaystee dimuqraadiyadda iyaan ka hortagayaa ninka yidhaahda basbaas baa indhaha loo marinayaa anuu hadda inii sheeg luu booliska soomaalida wax fahma soomaali wax badan in loo sheego uma baahno waxaan ugu baahnayn soomaali wax kasta way iska og tahay baadageyso uma baahno waxyaalo badan oo lagu daalo oo loo sii sheego waxaas uma baahno soomaali already they know it ibraahim cabdi waad soo wici kartaa ibraahim cabdi waad soo wici kartaa wari soo qabada maane waad soo wici xagga messengerka iga soo wici kartaa whatsappkaad ka soo wici kartaa dhinacaa doontid nin marti ah ku jira kolley mas-uul sare oo kilka soomaalida ayaa ku jira halkan oo maaragtay aan soo qaban doonaa kolkaa ibraahim cabdi maxaseed u qoratay ibraahim cabdi إبراهيم عبدي محاد ستة وجبات ستة وإبراهيم عبدي ما بيجرب كريم بس قال أنا أقرأ أنا أسف كلا أقرأ مياه أنا أسف كلا أقرأ كل كانوا على هاي لو بولس الصوماليات ما عرفتي نوين ودك واي قانا ورا ماشي يقوم جرت ما ورا هذا يقول جرت تسوى إبراهيم عبديو أفرن قال له ما تيجي يفا هذا عيار بعض هيسا صاحب عذير وماشي ولا سوي مت كنت هتدوني سين سدي عن فرتي على الرباع إنا ما رتي لو بوليس كالصوماليات عم لقوا تعديو طب لقوا تعديو يا الرباع مسؤول كان سوق قبتي السلام عليكم ورحمة الله المسؤول ما يمقشا ما يمقشا سفي عن اوكي هاي كسو هاي هلاو خدك كاي رحمن ملي ور ما خدك كا ها ما خدك كاي رحمن ما عادي وهي سفي عن ما أركم مقلا سفي عن ما يمقشا ما يمقشا هذا وانكم مقلا هذا وانكم مقلا واتقيسات انا كسو عايزك بل انا كسو عايزك انا كسو عايزك وحبا كسيئة وحبا كسيئة وحبا كسيئة بالسوق هالكوي كسو عايزك هلا السلام عليكم قد كاكا حاجة كلا واتساب كافي عنه واتساب كاي واتساب كان كاسو عايز واتساب كان كوي واتساب كده كل شيء في على لغة مقليو لكن واتساب كيان كبوي وربلسوقة وعباس كل على ما برنامج كود ديرانا يا كلي وحويان محمد يايو oo maaragtay isaguna ciidan xoog leh maaragtay tababaray oo canfara waan idin maqashiin doonaa kolka maaragtay canfari way ka tashatay hadda calooshoodu shaqaystayaashii canfareed ee maaragtay rabay ummadda canfareed wixii ay dhameeyeen horta way dhameeyeen laakiin inta hadhay iyaan ka gaadhaynaa inta hadhay baan ka gaadhaynaa بعد رجيسو عنفر already half ولا دمي وان قري يا سوغان انا كوسو قري سوق انا كوسو قري يرس انا كوسو قري يرس waxbaan kala hagaajinay ninkan martida hor soo qabanaya waan kugu xijsiinaya kolka in yar
wax yar ii kaad waxbaan kala yaraa gaajinayaan wax yar ii kaad wax yar telefonkaygaad rabtaa adigu Somali state, where is the Somali state? Hello, assalamu alaikum. Hello. هذا ما يمغل. Hello, assalamu alaikum. عليكم السلام. Hello. وريدي يا برد عاي. خدك كحن. ما قصة ما مقشان. ها وان أنا وهاتنكم مغلا ها وكاير كوكايا لكن بالكسر. أوكي. هذا والله. ملاي مغلا هذا ملاي مغلا. سفي عم بالغو مغلا سفي عم. وأمرك هراء أصحابته لما أنت وضياش شيء استياش والسلام يا وغري أحمد بشير وبرنامج كنودا دينية. أنت أسكدي waxaan rabaa markasta xaalad meesha marayso in la socodsiiyo ummadda Soomaaliyeed in marka fahansaneen ayaa aad wanaagsan ama aan jeclahay inaan la wadaago wixii makaransa fikirkayga iyo maskaxdayda iyo wixii ma garanaysaa waxa weeye la isku dhaama la isu sheego waxa weeyaan Axmedow marka hore waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed waxa lagu khaldayaa oo la dhahayaa تكري واكيل نبابية تكري واكي ساينو سمي تكري واكي هالكاميرا تكري واكي دتكين اللي تكري واكي ومحيسني هاي مركا أحمدو دمان دتكين الدعوان هيا وحن ربا إن آن السوبر بردقو أحمارو أو آن قرن هينو صح إيا الصومالي وحنجي ليا تكري هاي تكري إيا أحمار إن أسبر بردقو مركوري صح oon isla fahanno midkee dembi culus midkee xuquuqdeenna ogol midkeen ogolayn inaan isla dhigdhignaa wanaagsan waxaana weeyaan dadka meesha ku jira iyo inta ay sii gaadhsiin doonaanba nin walba asaga oo keligii ah inuu xisaabiyo oo qiimeeyo oo miisaan saaro oo keli ah degmadu ka soo jeeday ama gobolku ka soo jeeday ama deegaanka uu ka soo jeedo in uu qiimeeyo dhibaatada asaga oo waraysanaya hadduu yar yahay uu dhalinyaro yahay aabihii waraysanaya awowgii hadduu nooya waraysanaya hooyadii waraysanaya dadka taariikhda haya waraysanaya waxaa weeyaan Axmedow axmaaran ku horeyn axmaaro qarniyaal bay isla gumaysanaysay axmaarad halkaayna dhigtay weeye axmaaro ma ay jirto konton iyo laba degmo oo deegaanku ahaa oo hore markii laga reebo ma laba degmo oo degmada Guragado iyo degmada la yiraahdo gobolka Daawo ah oo la yiraahdo waxa weeyaan gobolka Daawo oo degmadii u dambeysay oo ku soo xusuusanay markii laga reebo waxaa weeye hal degmo ah oo deegaanka oo ina rushaynin diyaaradaha axmaaradu ma aysan jirin hudhet weeye degmada labaad ee ku sheegayo degmada hudhet iyo degmada Guragado markii laga reebo waad ogtihiin asuuqa ka dhacay degmada Garbo degmada Sagag degmada Dhuxun degmada Ashaca iyo dhammaanba waxaa weeyaan hal degmo ah waad ogtihiin xeelasha inuu ka cabahayo geela quraacda geelo geedaha xidhankaa la soo hori jiray oo magaranaysa neef loo soo degi jiray magaalooyinku magaalo kasta inta jeeray guurtay haddaad dhegaysanaysaan dadka degmooyinka ka soo jeeda oo degme hebel halkaasi ku ooli jirtay halkaasaa laga raray halkaasaa haddana la geeyey haddana halkaasaa laga raray halkaasaa la geeyey yacni taariikhda dib u raaca dadkii samaynayay ma tigreebaa mise axmaaray ahaayeen ninka aan kuu ogolayn inaad etoobiyaan tahay ood xuquuq leedahay
oo ma garanaysaa waxa weeye Itoobiyaanimadu inaga dhaxaysa ninkan ogoleen waa kee axmaar weeyaan aadiya ninka waxa weeyaan gobol kasta oo deegaanka Soomaalida ah degan raba inuu xuquuq ka helo asagoon lahayn inuu xuquuq kale ka helo raba inuu waliba kaa sareeya raba waa kee waa axmaar weeyaan ma aha Tigray aadiya bariiba Tigray nagu haystaan ma jirjigay Tigray nagu haystaan ma qabridaar bay Tigray nagu haystaan axmaara seenay nagu haysato dhulka yaa dhisay soo Tigray ma wax dhisay ilaan Tigray horteed ma waxa weeyaan marka ma magaalada jirto ma jirto Tigray diyaarad Tigray soo qaatay rusheeyay magaalooyin oo magaalooyin gubay oo magaalooyin garaacay hadday jirto commentiga ku cadeeya oo waxa dhahdaan magaalo heblu rusheeyay oo magaalo heblu rusheeyay lama helay axmaaradigan ku jiray intaan axmaarada ka gudbin axmaaradu ma ay jirto bahjeed aan ku lahayn iyo xuquuq aan federaalka ku lahayn ma jirto haddii laga tagi waayo dhowr oday iyo wax aan macna lahayn oo shaax ah siin jirtay oo ay leedahay magaranaysaa baalabaad wax la yidhaahdo iyo shaax siin jirtay kumayna ogoleen mushaar kumayna ogoleen bahjeed kumayna ogoleen waxbarasho kumayna ogoleen inaad muwaadin tahay kumayna ogoleen baasaboor kumayna ogoleen calan kumayna ogoleen mataqaanaa waxa weeye dalka inaad wax ku leedahay kumayna ogoleen inaad wax barato Soomaali shirad bay jirtay shirta Soomaali shirad Soomaaliya ka timid dhageyso Soomaaliya ka timid Itoobiya matid dhulku waa dhul Itoobiya laakiin aqsida ku joogtaa iyo ilaa hadda aaminsan axmaar aadiya markay sidaa tahay axmaara halka hadday tahay nolosha iyo hadday tahay mataqaanaa waxa weeyaan hadday nolosha tahay iyo hadday tahay mataqaanaa waxa weeyaan ogolaanshaha inay ku ogoshahay ama ma garanaysaa Itoobiyaan inaad tahay ay ku ogoshahay iyo dhibaatadeen u haystay markay ay ku caddahay haddaan been ka sheegayana nin walba ma garanaysaa comment ku soo cadde waayahay Tigray barbayna Tigray waxay noo sameeyeen calanka inoo taagan kan maanta taagan aha Tigray oo jooga yaa ma aqbalay صح وحاول constitution كإثيوبيا هي federalism أيام قعدناي ديجان كميد سجال كدولة ديجان على الصومال إثيوبيا كقوانتاي إنا نهاي وحين قراتي حقوق إنا كلنا هاي ذلك إثيوبيا أو إثيوبيا نهاي أو نلقى أوبلار لنا أو ذلك ديجان مقارنة صدق صدحات عن هاي كان صدحات يجرو أو بهجيت كأبركتي 44 bilyan markii lagu daro lacagta deeqbixiyaasha ka timaada waxa weeye 4 bilyan oo qasnada dhexe ku soo dhaxaysa ay leenahay waxay ka timid EBRDS oo waxa weeye Tigray iyo TPLF ay hogaaminayso weeyaan deegaanka aan hay 93 degmo 11 اسمه بالمقالة وحاول أرسحين طوضة إيه مقارنة مشاهد كودة إيه بهجيت كودة إيه هرمار كودة إيه اللامي دودة إيه وحا إيه تكريبا كتن بي أوكي مسؤول هالك أيقو جوكس مركز ساس هالك أيقو جوكس هالك أيقو جوكس هلو هاي محا أدو محا لا أحمد يرسب هاي دولة لو وده يو هالكيا معناها تن من كأنه كدمر تي بيلفتي إنما كمان تقنا سبتون كي تقالم يا عاديات عاديات أنا عايز ما تقنا إني تدخل حقوق تبقى أي حيران أو حتى سيد وردتكم ما أحد ولا ولا بريء نكست ما تقنا ديال بدون بها هذا حقوق تبقى إني هيلي يسكع طاي قوبي عاديات كان دربانك أطمع هي إن أحمر ما تقنا
difaaco oo mataqaana ahmaar waa la yaqaana waxaynu samaysay xasuuqa inuu geystay waa la ogyahay aadiya qaad maanta Jaanis baynu haysanaa Jaaniskan haysano inay ka faa'iideysano isku tashano oo weeye muhiimadu laakiin maanta in la qoro aynu dhalinyarta ogeyn oo in xaggan ka dagaalka kala waa nasiib darro weeye ma amxaaradii baa loo dagaalamay oo dibna loogu soo celinaya bal adduunyada ilaahay daawo damiirkaas halkuu jira ilaahay ku dhari ma nimankii wadanka horumar u diiday dadnimadii noo diiday ee ma aragtayna duleystay iyo Mustafa Cagjar maanta leeyahay wiilal Soomaaliya u diraya oo u dagaalamaya ma la aqli miya hada waraysi waxaan dhageysanayay mataqaanaa nin xabashi ah masaay ay tahay isaga weydiiyay su'aalo ma ka qayb qaadan doontaa ma taqaan hay ya dhageysanayay koobi hay doodii habeenkii weytan wakiil ha mataqaanaa masayrka ummadan u taaganay war waa beenaale kan qabri male aadiyaad luu booliska maxaa ugu baaqaysaa balkaadi luu booliska Soomaaliyeed ee maanta la rabo in halka naftooda lagu soo bixiyo maxaa ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa in deegaankiina aad ilaashataan hantidiina iyo resourcekiina aad ilaashataan waxba idin kama gelin kaba qaad mataqaanaa axmaare ee deegaankiina iyo khayraadkiina iyo noloshiina ilaashada mataqaanaa waxaas iyo propagandadaas shalay mid baan ku sheegay shalay joogay maanta ma joogo adna bari waa tagi dadka yaan lagu halaagin oo mataqaanaa masiibo loo horseedini ninkastoo ay hayo madaxda u tashan yaanu ciidamada qalabka sida aad baad ma tato walaalka aad baad ma tato okay ku soo Soomaali axmedow waxa weeyaan waan si wanaagsan weeyaan ay dhageystayaasha ama daawadayaasha waxa kale oo la wadaagaynaa oo si wadahaya waxa weeyaan tifreegu xuduud ma lihin adig inaga ka badan Soomaali baa ka badan Soomaali baa ka dhul weyn waxa usokaysa almaata inta inoo jirto waad garanaysaa aadiya markay saas tahay waxa weeyaan jigjiga Tigray ma degano goday ma degano qabridaar ma degano wajaale ma degano Aysha ma degano laakiin intaba xabashiba degan oo kugu haysata intaba xabashiba degan oo kugu haysata isku beertay waliba waxa weeyaan waxna kuma ogolo oo dhulkiina aad leedahay kuma ogolo oo inaad xuquuq deegaanka ku leedahay kuma ogolo waxa weeye isaad ama mataqaanaa waxa telefishinada xag jirka ah waxa weeyaan axmaarada waxba yaan warbixin been abuur ah oo waxba ka jirin oo wanjal ah iyo Mustafa Siin waxa weeyaan Mustafa ciidanka liu booliska ama ciidanka gaarka ah ee dawladda deegaanka Soomaalidu qaabkii loo soo aasaasay iyo cidii aasaastay iyo ma garanaysaa waxa weeye xeerkii lagu aasaasay ama nidaamkii sharciga lagu aasaasay iyo cidii soo process garaysay way isgaranayaan oo way is og yihiin oo dhibaatada loo soo maray iyo tay iyagu u soo mareen way og yihiin aadiya waxa weeye time bay ku dhurayaan boqolkiiba 99 waxaan ku kalsoonahay ciidanka liu boolis inuu gacmo furan ku soo dhaweynayo isbahaysiyada ama ma garanaysaa waxa weeye jabhadaha midoobay ee raadinaya xuquuqdii reer Itoobiya oo dhan oo beerbeerab saboojka iyo waxa weeyaan wadajirka Itoobiya iyo xuquuqdii ay Itoobiya qowmiyaduhu lahaayeen ee qowmiyad kasta calankeeda iyo nidaamkeeda iyo sharcigeeda iyo calankeeda iyo baarlamaankeeda ay xor u ahayd oo si wada jir ah ridanayo in gacanta loo geliyo ay garanaysaa ka dagaalamayaan in gacanta loo geliyo waxa weeye axmaaro ama aanrinat wax la yiraahdo ama wax la yiraahdo mataqaanaa naftanya wax la yiraahdo in gacanta loo geliyo ay ka dagaalamayaan inay gacmo furan ay ku soo dhaweeyaan boqolkiiba 99 ayaan ku kalsoonahay ciidanka liu booliska shakhsiyaad waxa weeyaan xubnahan uu Mustafa joogaha ka yahay ee waxa weeye ahaa baalashaashii Nairobi iyo waxa weeyaan dadkii geela ku raacayay ma garanaysaa waxa weeye Sacuudi Carabiya iyo hudheelayaasha
حمر ما قرن ساوي حوي حمر قيمي حبناها آير قرصوين كودا قادنا يا كل ليلة أنت دنبيرياشها انتربولكا يلي استدعوا حتى الله إيربو عالمك وانا لسوق إيشينا أنا إذن معلم نقطة أنت وحويان وحي ورام الرادين سن رادين هنا وحي بيشان قول رادين سن رادين هنا أو كمل له رادين هنا تكري واحد رادين يا رادين هنا وحوي قوميتها إثيوبيا وحي رادين هيان عيان رادين هنا أو كم ذا يسمى أو حن راد إلى علمها هنا على كفضرالك إثيوبيا calaamadaha waxyaabaha namidayn haya ee qodobka 39 kamid yahay ee buuda calanka qaybta dhexe ee fadaraal tilmaamaysa iyo in aan ku midaysanahay qoomiyado isu yimid oo 9 kilal deegaankaas oo qoomiyadood ah iyo laba ismaamul magaalo Ibrahim Abdi waxa weeye waxaan ku midaysanahay in raadinayno waa inta weeyaan waxa weeyaan ciidanka booliska waxaan ugu baaqayaa idinka oo ka dharagsan inta aan sheegay iyo in ka badanba oo aan halkan ku soo koobi karin waxa weeyaan isbarbar dhiga ahmaara iyo waxa isbarbar dhigtaan adiga oo xor ah oo federaalnimadaada ilaashanaya oo state-kaaga ilaashanaya oo waxa weeye degmooyinka aad haysato ee 93 degmaha in la agsii samaysanayo oo shidaalkaaga ilaashan shidaalka China uu dhuuqo ee waxa weeye maari iyo China ay dhuuqayaan waxa weeye ma noqonayso inay dhuuqayaan shidaalka waxa iskale ummadda deegaanka Soomaalida iskale waxa weeyaan ayada maamuli waxa weeyaan nidaam sharci ah oo federaalism ah oo waxa weeyaan ku cad waxa weeyaan meel kasta sharci lagu cadeeyay oo inta federaalku inta deegaanku yahay inta ku dib ugu soo noqon doonta ku cad ayaa lagu salayn doonaa kun mana karamari doonto marka waxa weeyaan xubno yar oo macaan jecel ah oo Nairobi baalashlayaashii Nairobi iyo udheedlayaashii mataqaanaa waxa weeye xamar iyo kuwii geela ku raacayay magaranaysa waxa weeye Saudi Arabia ee diil jiraha ah ee waxa weeye jaahiriinta ah ee waxba baranin ee dhulkan aqoonin ee dalkan aqoonin ee xaladkiisa aqoonin ee waxa weeyaan keli ah dawladda deegaanka Soomaalida oo maqlay meel hadda magaranaysa waxa weeye arinteedu ay ayagu go'aamin karaan ama dhinac ahmaar ay hoos geyn karaan oo magaranaysa hoos geyn karaan isaab iyo xajirka ahmaarada naftanya ay hoos geyn karaan iyo beerdheer iyo goondar ma noqonayso iyo goojam ma noqonayso marka waxaan ugu baaqayaa ciidanka booliska ciidanka dawladda deegaanka Soomaalida ha ku sugnaado gobolka City ha ku sugnaato gobolka Faafan iyo magaranaysa dhamaanba 11 gobol 93 degmo sargaal kasta oo ku sugan ama askari kasta oo ku sugan oo kamid ah xoogga gaarka ah waxaan ogeysiinaynaa oo ugu baaqaynaa oo la socodsiinaynaa in ay soo socdaan qoomiyadii Ethiopia kuwaasoo sugahaya dhammaan dalka Ethiopia xadkiisa gudihiisa iyo waxa weeye dambiilayaashana qaban haya oo gacan bir ah ku qaban haya inay soo dhaweeyaan oo ay kamid yihiin deegaanka Soomaalida uu kamid yahay hogaaminteedii ay kamid tahay waxa weeye madaxweynihii dawladda deegaanka Soomaalida illigii la soo weeraray wada weydeen ee sharci darrada lagu soo weeraray wada weydeen ee hadda qaaliti buu ku xiran yahay sharci darro u xiran yahay waxa weeyaan ma jirto sharci xilka laga qaaday 5 sano ee la soo doortay 2 sano asagoo u dhiman tahay baa lagu soo weeraray dabaabaad qaaliti uu ku xiran yahay sharci darro kuwa yimina sharci darro ku joogaan qori afkii baa lagu keenay military ilaalinaya la keenay military-giina waad aragtaan in 10 kun loo qabanayo waxa weeye military-gii dabaabaadka watay diyaaradaha watay taangiyada watay wax hubka waaweyn watay yaa la soo jabiyay oo afka la mariyay oo maxaabiista oo aad u jeedaan oo waxa weeyaan aad ka kartaan social media iyo warbaahinta caalamka raaca warbaahinta caalamka ee Reuters ka mid tahay ee CNN ka mid tahay ee Al Jazeera ka mid tahay ee BBC ka mid tahay internationalka raacina feegaar xubnaha mataqaanaa meelaha ay ku feegaarayaan Facebook ay ku feegaarayaan raacina ee internationalka
warbaahinta caalamiga raaca xaqiiqda raaca indhihiina idin macallin ah gabdha yar yar oo magaranaysaa ummo ah oo Addis Ababa laga qabtay waxa weeyaan oo ummo ah oo caanu kadii oo 10 xubnood ah waxba yuuna Facebook soo dhigdhigin waxba yuuna baraantamada yuuna ku qaybin Ethiopia Broadcast Corporation iyo noo qaybin SRTV yuuna qaybin waxa weeye dhabtay tagi hadda Mustafa Ali Jarma wuxuu waayay media kale waan soo dhaweynayna command post uu banooga dhigay waxa weeye ha soo xiriiraan dadku waxa weeye nambaraanta TV soo fadhiiso waxa weeyaan nambaraha soo xiriiray waan soo xiriirayna ma ahana waan imaanaynaa sharciga ana la idin maray intii dambiilayaasha sharciga idin la xisaabtan ninkii dambiga geystay sharciga la xisaabtan listiga gacanta lagu haya Interpol baa gacanta ku haysta hay'adaha internationalka gacanta ku haya waxa weeyaan waxaana ugu weyn dambiile murtadka afka guduudan ee Abiy baa ugu weyn aad iyo aad marka yatiimkiisa weeyaan meel kasta ama deegaan kasta dambiilayaasha la shaqeynaya ee dambiyada kale waxa weeye listigii ay soo saartay TDF iyo listiya kale oo deegaanada laga soo diyaariyay way jiraan waxa weeye yeena idin galaafanin shacab weynaha iyo ciidanka booliska waa inaad hawsha qataan waa in aad gacmo furan ku soo dhaweysaan qoomiyadii Ethiopia beher saboojkii iyo dhammaan waxa weeye dadkii walaalaha ahaa ee la kala dilay ee la isku diray ee qoomiyad u gudbi karta aysan jirin ee iswada cunaysa ee waxa weeye boqolaalka kun ee qof ay ku maraysaa waxa weeyaan aragsan yihiin ee ku go'doonsan yihiin ayaga oo gacmaha is haysta oo beher sabooj ah oo waxa weeyaan nin walba xuquuqdiisa gaar u leeyahay oo deegaankiisa gaar u leeyahay oo tii guudna aan ilaashanayno tii baa soo socota gacmo furan lagu soo dhaweeyo ubax lagu soo dhaweeyo caleemo qoyan lagu soo dhaweeyo lama gabanayno oo waxa weeyaan ama TDF aato TPLF aato ama OLA ha ahaato gacmo furan waxaan geel dhalay OLA iyo TPLF iyo TDF ugu lisaya malayka iyo mugweyn iyo dhammaanba qorax waxa weeye 11 gobol ee deegaanka ee waxa weeyaan gobolkii xasiidan sida uga guri gobolkii geel dhaweelana geel dhalay ugu lisi nabadweyno naqalay baan ma garanaysaa waxa weeye ku soo dalxiisinaya aniga iskale xuduudihiisa sameeyay ciidanka sameeyay sharcigan iyo calankan iyo nidaamkan iyo kala dambeynta sameeyay wiil yar oo shalay xalana ka yimid iyo ma garanaysaa xamar ka yimid oo fawdadu ku soo noolaa aan fawda kama dhigahayo mana noqonayso kana aqbali mayno waxaana weeyaan toddobaad ama wax ka yar baa ka dhiman ama waxa weeye hadday badato waa 2 week arag kiilo yaa dhaantada lagu jabin waxaad arki doontaan arag kiilo oo lagu dhaanta war dabro Ibrahim hadda dabro Ibrahim xafiiska Ethiopia arag kiilo ama kilometer 4 oo waxa weeye dhaantada lagu tuuban doona oo gacmaha isaysano walaalahan Oromo walaalahan Tigray walaalahan Beeshaan Gurgumus Gambeella dhammaan qoomiyadihii la kala dilay oo gacmaha isaysta oo walaala ah oo wada dhaantaynaya wada heesaya yaa halka isoogu iman kadibna waxa loo dhaadhicin deegaanadii marka soo dhaweeya telefoon lagu qoray ma garanaysaa wiilka yar ee TV-ga xalay la soo fadhiisiyay askariga ah shalay ka soo qabanay mataqaanaa waxa weeye ururka al-Ittixaad ama waxaan jeedaa ii sheegay WSLF waxa weeye ka soo xarooday sida nabadgelyada ku keenay ee qorigiisa aglaha hadda stoorka uu ku xareysan yahay ama kinjaabeedka qori afjeexa oo bur aan dhiibnay nir shaqayso askari baa tahay sharcigii aan barnay dhaqan celinay ee asagoo afkiisa ka qirahaya qorigiisii intaan ka qaadnay qori kale aan u dhiibnay aad fiirsan kartaan wiilkaa yar beentiisa iyo waxa loo dhiibay warqadda uu dhiibay mataqaanaa ee la xifdisiinaya 2 maalmood la xifdisiinayay waxba ha dhagaysanina kitaab 10 kitaab maray
أنا لفت كتاب مري أو بحاول يدوري سلف كتاب مري أو كم حاكم الإسلام كتاب مري أو بحاول يعمل لي بولز كتاب مري وحاول كاير متقن برنا وحاول يدقن علي يربع الله وقلين وقصف عن بواصحي شقدي سكر يا ويل كاير وحما وسكريه وحما فيرنا من كان بدار ترينو قطي ماذا حديرن وحاول حلان وكيمد حلانه يكيمد فوضدي يا قرحي يا دبعتدي حمل كجرتي يورباتنا نكو ابورو ما نقونayso sharciga la marin doona halku abiyi gala ayuu gali doona wuxuu muto ayuu mudan doona kiibu kala diray qabiil bi soo gudray waxa weeyaan axmaaru hooskeeyo deegaankii bahjeedkii deegaanku axmaaru ku dhacaa oo lagu qoodiya marka waxay noqotay xafar buu isku diray iyo deegaanka Soomaalidu isku dhuftay wiil yar oo waa sheeganayo Mustafa la yiraahdo dir dhaba jooga yaa xukumo fadhina u jeediya oo waxa weeyaan siyaasadda ku milmay oo reerku ka soo jeeday ay khaatiyaan ka taagan yihiin yaa yiraahda kan madaxweyne ku-xigeen ka dhig kan ka dhig wasiirka ka dhig kan deegaanada maxaa koob iyo 10 gobol la hal wasiir u diiday gobolana 9 وزيرسي بيرو اسكو ما garanaya sharci ma garanaya deegaanka inta ka koobay wuxuu yahay ma u fahansan marka waxaan ku soo dhaweynayaa dadka kale ee ka qayb qaadan laha barnaamijka waan ku soo noqonayaa hadda Axmed Bashiir oo aad baad maadsan tahay inaan waqti dheer ka hadlo oo dadka la qaato mataqaanaa wixii maskaxdeeda ku jira aan la wadaago marka wabillahi tawfiiq assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh aad iyo aad maadsan tahay waa mas'uul sare oo ma aragtay og dawladii horena kamid ahaa ogna say wax u jiraan xaaladda Ethiopia sinaba ugama qarsoono ma aragtay wuu og yahay xoogaal buu yahay arrimaha socda xoogaal buu yahay balaad dhageysta kolka in la isfahamsiiyo yaa loo baahan yahay loo booliska dabka lagu gurayo maanta ee assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh alaykum asalaam warahmatullahi wabarakatuh Ahmed شيء وكو سلامي أدي يوم أرتاحوا داوداش ماشي كجربة هاي إن كقيد بعد برنامج كان فكري كذا إن شاء الله تعالى ربا كوسع الله جرب يسوي عدو أساس عمك وكوسع علي وأنا كوسع علي هذا كي يسوي عيو وقت يرسيه أنت آلي ما حصل إن شاء الله تعالى وحوي إن شاء الله عدي إنه كحضرنا مع تحمار ذني نفتنيا ما شاهسته وحويان كل ما ارتحوا شيخ نيكي هوريه ودمي هذا لكن حغير او حاجه عبدي ليهم با مارتيني كاسي اخويا القريه انت كلام ما ارتحوا صحيح برنامج عبدي لي ما برنامج حويان لو بوليسك الصوماليات dabka lagu sii gurayo new booliska Soomaaliyeed iyo new booliska maarta Oromiya new booliska sta in maarta waxa weeyaan maarta qoomiyad lagu garaacay waxay noqonaysaa maarta sibex taas wala garanaya in axmaar waxna wada la garanaya ya Ali Ahmed hay hadda Abi Ahmed iyo axmaaro waxay doonayaan inay si maamulaan ma noqonaysa macnaha sharciga caalamiga xitaa ma dhigayo in maarta waxa weeyaan maarta inta genocide sameeyaan cid maamul lahaayeen waxaan bayna noqonayna دام حارة إمك جنسيد تقريبا كوسا من نابي هاي لكن سومالي أورمانا جنسيد كوين باكود عدون هرت أورما عاد بون على محارضو كلك سومالي هذا أحمارضو أورما مارت أنتو تقري جوي أورما أنت أحمارة كنا صدق أنت هسه تقري أنتو جوي أحمار أورما أصلا لكن هذا أنتو أبي ماشي جوي أورما ده ولا عاي وعيان ولا كانوا قاعد يقرأوا حاجة اللي سجاش اللي دليل أنا ما تمام ده وتود بيسي تاسو ما تلدري طلع أو شيء دولي هاي كل كام حام أنا محارة أنا واحد نو ولا تقريبا نو ولا صوما ده تقريبا وكي مرتوح ويا مرتوح في النهاية مرتوح العدامة ينوس سمية تمر مرتوح لامية مرتوح ويا مرتعدي أكتب بحوي بقولش على إلا أتصور أنا سيحنا أو سيحنا صار مرتوح ويا نظام تبين إن المرجوير يجا سمية وطن يجا نوس من لغة رمضان خبرنا معروف وكل ورن تري مرت رمضان ويكون على اللغة ده إن مرتوح ويا مرتوح هذه اللي تبين أنا صومال لقى على اللغة مرتوح رئيس مرتوح راديو الرئيس مرتوح رمضان أوكي وطن كيف نودسين afkiini bartay yiraahdeen dhaqankiina ku ciyaaray yiraahdeen tigreeyu sameeyay waa la garanayaa laakiin Abi Ahmed hadda 4 sano joogay wuxuu sameeyay iska baaq wuxuu diray mooyaane cid sheegay soorta ma jiro dadka wax soo qoraya komitee soo qoraya warkama ayaan dadka mood kolka cagjar wuxuu la kulmaa TV-ga istaad buu la kulmaa لما كل ما تيفي جالس تيفي سما هني كمارتي أحمر مو حد جيل جوا أحمر بعد جيل جوا هذا أحمر أو حوالي مارتي جلايا والله صدري أو وحياة كنا بدنا مارتي لا جوا حضور مارتي مارتي هذا نودن بيسي عجر هاي عجر شقة كلو ولا شقة صوماليات ما هيو نيو بوليس كريه وحياة بني يجي حاجة تورية لمن كان كشقين إنه مارتي حوالي أحمر دفاعان
si ay Soomaalina u maaweeliyaan in Tigray cadow uu yahay oo dhaadhiciyaan shacabka warkaasi ma jireen Tigray waa walaalahayo oo maanta aad iyo aad ba Tigray isu jecel lahay Tigray iyo Ola waa soo dhaweynaa insha Allah ta'ala haddana dabarsi inay ku sugan xashara ku sugnaan maanta way dhaafeen waxa weeyaan maanta sababo waxa loo jiraa 40 kilomitir waxaanu eegi doonaa insha Allah ta'ala todobaadada soo socda maanta waxa Abi Ahmed oo maanta waxa weeyaan maanta sida la laadinayo insha Allah taasi jirida baa la qabtay aad iyo aad insha Allah taas ilaahay ka rajeynina Abi Ahmed waa la qaban doonaa xeerkan waa la dul keeni doonaa Abi Ahmed insha Allah ta'ala maanta waxa weeyaan maanta fikireen taasan ku soo koray insha Allah ta'ala kuna sida ha u maqlaan ninkan waxa weeyaan maanta waa murtad diin ma yaqaano aabihii buu dilay waa nin maanta waxa weeyaan axmaaroobay oo maanta waxa weeyaan maanta fikir axmaaro wata wali axmaarada xal jirka wata dadku soo ha u fahmaan iyuna maanta waxa weeyaan dadka maanta qasin oo dadkan shacabku ka caleeyahay waxyaabahan uu iska hadlaya kursigiisa ugu jooga axmaarona kursiga u jooga oramo ma jooga ninkan saa u fahmaan waan ognahay taa amxaar inuu ninkuba waa amxaar baa leeyahay waa Eritrean baa leeyahay ninkan axmaaro u jooga qayro oo soo dhimatay walaalihii ahay oo soo dhimatay oo 5,000 oo qayra u soo dhimatay xukunkii ninkii ka dambeeyay iyo ninka kala maarto waxa weeyaan shaqada ay wada wadeen madaxweyne ku-xigeenka uu ahaa waa kan xiray hadda tusaale ku qaadanaya dadka Soomaaliyeed insha Allah ta'ala kulli Soomaaliya ku hadlay oramada Soomaaliya ku hadashada ninkan wuxuu sameeyay wala garanaya ninka maanta walaalkii loo xiriyo adiguna soo qoysay iyo tahay mood aad iyo aad bal maadsanta walaalku aad iyo aad bal maadsanta waa laga dheregsan yahay Abi insha Allah ta'ala salaam Abi Ahmed sheekadiisa waa laga dheregsan yahay Abi Ahmed waxa weeyaan nin aan maaragtay diin lahayn wa assalamu alaykum حاجة كلام كاسو وع حاجة واد سو وعد سو ما هين 59 اوكي 59 تلف اوكي اوكي يا حاجة كلام كاسو حاجة سكدك دينا عن واحد بس اللي كمان مغليين هاي احنا حطام ليه ويش 59 50 بروح انا مع التليفون إلهي هلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دمان أحمد بشير وقصامي يا أديك يا دمان دقيستياشا بدن برنامج كان بروا أنا قلنا عرفتي أنا واحد كذا درسه برنامج كله يا دوبي بدن ضد بدن خياره أقوياءنا يجان اللي حجله مركز سومالدو كايسو يا كهذي مركز أنا رأيي رأينا كدرسو ضد كور رأيي أنا دوما سيبهانو وحلو بهاي أديك كرهانو تحكموا العلة يا دلال كنا ضده ku aadan dadkan Soomaalida ah mar dambe in aanan gacan gumaysti ay hooskii waa loo soo weysaystay hadda in lagu tukan doono mooy laakiin hadda way amxaaro way soo weysaysatay ma axmaaro banaankaas axmaaro waxa ma qaban karto axmaaro way gabadhowda warkeedii TDF marka hore TDF ilaa Soomaalidu bixiyay maanta iyagu ilaahay mar labaad soo aadiyad marka maanta xilligan aan taaganahay waa inaan ka faa'iideysanaa Soomaalidu waa inay ka faa'iideysto Soomaalidu waliba deegaanka joogta waa inay qorihooda qaataan kuwa qurbaha jooga waa inay gudaha galaan hubkooda iyo wata ay gudaha galaan aadiyad kana garab dagaalamaan ciidamada TDF maslaxada iyo sharafta Soomaaliyeedna waxay ku jirtaa ma TDF oo la garab istaago sida door jamcada ormada oo kale iyo ormada oo dhamaantood soo garab istaageen geesda afarta soo garab istaageen Soomaalidana sidoo kale loo baahan yahay waxyaabaha micno la'aanta ee lagu wareegay canfari waxay isgarab taagtay naftaja isgarab taagtay maxaad leedahay adigu canfar way kala baxday anu inta aan soo wararka inta qaybtaan kaga hayo qaybta waxgaradka ah wax fahansan iyagu aan mushaarkooda ku dagaalamaynin waxay garab taagayeen geesiyada TDF-ta diiday waxa la yiraahdo aaninadka Itoobiya ama gumayskan waxa weeyaan xaq jirka ah raba inuu isagu talada guud ee dalka uu qabsado oo 110 milyan oo taliya hal meel uga tan diideen shalay way diideen maanta aadiyad biyadaha kale marka Soomaalida waxaad arkaysaa deegaanka Soomaalida oo kale madaxda haysata waxay leeyihiin TDF iyo Tigray baa nagu soo duulay oo nu ka hortagayna oo arsaba ka hortagayna waxay iloobeen kursigan ay ku fadhiyaan iyo madaxnimadan ay hadda ay joogaan iyo wasiiradan inay TDF ka dooshalkan taas way oo in xabad soo galay migisto soo galay xaylasaas soo galay
qof Soomaali oo wardiya zalaya ka badan jiray uu sajid aadiya shaqadiisu aadiya marka ninkii shalay iloobay maana waxaan ku qiyaas karaa madaxda deegaanka Soomaalidu madax ma aho waxa weeyaan waa krishbeeyo oo shaqeeya xabashada weeyaan hay mas'uuliyiin laba fadhi kara dad mas'uuliyiin maanta waxay aabul lahaayeen dadkooda waxay garab istaagi lahaayeen oo ay xabadda ku bilaabi lahaayeen kaliya taliyahan Abiy Ahmed iyo Ahmaradan istawa socda isbaaysiga aadiya iyagoo dadkooda ay ka talintooda iyo isu keenida Soomaali weynta meel walba ay joogaanba midayn laha waxay wali si daba taagayeen ninkan dhintay ay naftu ka baxday ee haddana gurguranayo isagoo naftu ka baxday wali si gurguranaya maya waxa wala qabanaya hadda dabra Ibrahim baa la jooga hadda marna waa la qabanayaa kolley ma dheeraanay sheekadiisu ma sii dheero Abiy Ahmed xarig loo soo qoorta uun sug wax kala sugin meel shaki kuma jiro ana shakiga ma jiro barsool shakhsiyan shakiga ma jiro Abiy Ahmed sidii Saddam Hussein il daldalay isaga iyo dhammaan la taliyaa kuwii la socday ee la shaqeynaya gacyaraashaha oo deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed ka mid yahay shakiga ma jiro in hada cad lagu daldali doono gudaha Itoobiya aadiya TDF meelowda dekenaada dadka Soomaaliyeedna dekanaha ay ka galeen TDF kaliya laga ma gelin waxa laga galay ummadda 100 milyan ee Itoobiya ku nool baa laga galay aadiya markii laga reebo 12 milyan xabashada waxa sida loo galay waa loo gaay afarta waa loo gaay Soomaalida waa loo gaay so Abiy Cornel Abiy baa kamid ah ma aha dadka ku hoos dhuumanaya TDF ta ku hoos dhuumanaya TPLF ta oo dadkana leyn jiray la oroma half people buu dhameeyay ninkan Cornel Abiy milyan oo oroma meel galaan la leeyahay 3 sano u dambeysay waa Abiy Ahmed oo xilka Itoobiya hayay oo meel galaan human rights ay baaritaano badan ku wadaan madax badan aqoon-yahano badan oo qowmiyad oromada kamid ah meel ku dambeeyaan la haynin kuwa cadda ee laftooda ilaa hadda xabsiyada ugu jira kuwa aanan la ogeyn meel ay ku dambeeyeen dhimasho iyo geetoona qowmiyadda oromada lagu sameeyo ku baafiyaan malaayiin kor dhaafi aadiyaad dambiyadaasu waa kuwa soo gaabinaya waqtigiisa soo gaabinaya wasaaraha Itoobiya taariikhda cusub baan Itoobiya ka bilaabanaysa inta uusan sanadkan uusan dhamaanin ee laga faa'iideysto oo waxa leeyahay Soomaalidu cabsidan iska daayaan ciidamadan ay ka cabsanayaan Soomaalida wax ay qaban karaan ma jiraan haddii dadku ay hubkooda qaataan waxba ma qaban karaan ciidanka Itoobiya wadana وقرتها سلاحي مال بنتي كذا اللي قصده ديني لا وينو يرى أو TDF هاي نهاية تاني عاديات بس هذا عبسنا كم بحضو كل هوتا شلون كعمها يسقط شلون واحد حضور هاي اللوبان يسبدل كم قريب موقدا وين كقاطان والله أركان هذا اللي وضح أنا عبطة دين على الجلا وحويا جميسان وقت جيسة الماضي يعني صوف عاديات maxaa ku soo gogoynaysaa dadka kala waqtaasiin marka waxaan ku soo gabagabaynayaa dadaalkan wadaan Silva Jibar Ahmed Bashir waxaan maray taariikhda ku xusu doonta anaguna dadaalkan dhacayna ka wadnaa hadaan jariidaha qurbaha jooga nahay dadaalay waliba ku ekaan mayn hadal ku ekaan mayn qoryaha naga qaadanayna gudaha galayna jariidana waxaan leeyahay qurbaha ku nool ee deegaanka Soomaalida ka soo jeeda dhammaantood waa inay gudaha galaan عاديات بما تتولى وكادتك عقلي قالي وتا يو إلا يداول اسكت دقاقة ما دتك عقلي قالي وكادر كيسين وحالا قرانا يا ورتيب بإهلف وربلو كادي بإهلف كهن داود وروتن كان أدمان تأذكر راح يسن يسين جيجا فوقك دادير له أسفلت كان أدباور كساد دون تبقول كاد قوة موجري بل انتاو نسويتي warxabada asfaalta am xarmay dhistay 200 sano bay wadankan dhangago iyo direedo inta u dhaxaysa iyo daamur yara dhigtay board baan soconayna adoo board miina ayaa tagaysay wadanka aad gurigaaga tagaysay maanta board ma sarkaysiin waxa lagu dhigisay daamur baa lagu dhisay min Hargeysa ilaa Adsaba min Jigjiga ilaa Goday waxan ma ayaa ku keenay ما محارب كوسا مين لا ما تجوك تلا بقول داري ورأذر بنت إيه وحويان قفك ولا سيا وناقي سوالة سيا حمان تسنة ولا شيء وح حمان تأمته كوسا مين هنا قرن كي كوس دون تيوم بيعين قرن كي كوس دون تي ورعدده هوس تيدا حتى مالك كست سفين ويدد قرن باكوس دون تا قرن كاسي بوق بيسوب بدلا
بل سفين وا تضبط بل سفين وا عدي ذا هوستيد كده بوق بتسكار كيستا تضبط كلبات قرن كيسدا تي بيرفت ugu hoos dhuuntay iyo ummadda Soomaaliyeed ummadda Oromo leeynay yaa kamid aha Faashista Abiy Ahmed baa kamid aha isagoo iska dhigaya nin taageersan dawladda Mala Zeenaawi iyo ummadda Oromo leeynay imise quruna ku hoos jiray warinta leeg bay faa'iido sameeyeen waddanka horumarkiisa amaadna arkeen ay dhageyseen afkiina barta yidhaahdeen baadrigiiso yaa noo ogolaa afkoo quraata in lagu hadlo mana loo ogolaa 200 sano kiiba maanta la soo dhigay arad kiilo gudihiisa la soo dhigay mililig oo sidoo isagu yaal sidii daayeerkii daaxur gaboobay lagu soo dhigay wuxuu yaalaa guriga ma aragtay Mustafa Cagjar ku jiro mililig baa dhex yaala believe me or no guriga jigjiga ku yaala mililig baa dhex yaala inkastoo Mustafa Cagjar bada mililig yahay Mustafa Cagjar TV-ga isaad mooya meel kale lama hadlo muxuu laadwa way TV-ga istaag mililig baa iskale عارف لو كان سهل على التي في كله لما هذا كراي هذا كيسو هذا نمك تي بي الف وناك بيسميين عاديات وفي عن يسميين ماذا يتوب يردن يسميين of كون الشيء وراك كيس هلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هاي إيه ورنا أحمد بشير ولا في عينك وصل ورنيا برنامج قوام جاي عند ذكرت الله يبقى هاي حالتها ما يبغى والله مغلاك وصل محايلك حالها وطن كيمك وطن هو حالتي سوى حنتها إثيوبيا أو ما أدري حتى قيبتها مريبة أو تزاجي وكان يسقي هذا جوسنا مكاننا صار هاي هاي ها مرحبا ساوي وجه ساوي رجل حل انت ولا حلنا يا حتى سبا لو دو yahay كورنيل ابي ولا soo qabto umba xala abi intu meesha joogo wadankaasi wadan ma noqonay ها اوكي لكن هي كمان تضربوا ما هنا دغال جوجان ديار موين يبو dagaal see loo joojiyo dagaalka horta abi waa in la qabto kolkaas dagaal joogsanaya دنان كو على ودن كان hadii تضربوا شان كسو ودان ودن كو بريا ma wadan baa nool wadanku soo burburay هذا تضربوا dad waxay wadaleeyeen boqolkiiba ana tضرب mar rabnada la wadaleeyay ayaa yiri beenta maxaa u sheegaysaa أحمد وردك صار حي وبيجا مقرن السايب حوي عواش هنا السوق قاعدين بهذا الصوت شيء يا هاي وبيجا عواش سيدا كله حقا يوم تقاناي دبربران هنا مقرن السايب حوي سدح جهو لقى قلبي يشيغيان مركب حويان عواش iyo u dhaxaysa garmeetu yaa Washington u dhaxaysa inay ka soo dhaxayaan marka la soo dhaweeyo jabhadaha TDF iyo la soo dhaweeyo ummadda Soomaaliya soo dhaweyso waxa way beher suwajka la soo dhaweeyo kaliya labada ma aha beeshaan gurgumis baa la socoto Gambeela la socota oo waxa la socda qoomiyadii Itoobiya oo dhan baa la socota waxaana soo imaan doonaan arad kiilo ama finfinne ma garanaysaa goobta looga taliya dalka kadib waxay noqonaysaa iyadoo gacmahan saysano oo waxa weeye hoos loo dhaciyay oo waxa weeyaan axmaaro wuxuu yiri gabyaagii weynaa Allah yarxamaha qaryan dhoodaan wuxuu yiri undurmaan haddaydan wax badan laaj ku ahaanin bi undurmaan waa sood waa Suudaan weeyaan undurmaan yey laaj ku noqon geed ina ayga hadii la kari waa geed baa la iskaga xidhaa أحمر جيد بانس كحرينا تجوجية دكان بالغرري أردن كودي آدي تجودي دكان بالغرري أردن كودي آدي توحويان أنت الشرع كتشوج ويده أيضا أو مرتي
aad joogi weyda waxa weeye halku ka yimid baa lagu celin beenna ma aha waxa weeyaan ama undurmaan laajah ku ahaado wuxuu yidhi ashnaaqashtay lahaayeen haddaanan aamina u bixinin buu yidhi waxaan soo dhawaynaynaa annaga kama dhigno ama ma wado anigu in aan la dagaalamahayo qoomiyadaha Itoobiya ee diimaha kala duwan haysta waxaan la dagaalamahayaa ninka aan ogolaynan Itoobiyaanahay aan ogolaynan xuquuq ku leeyahay waxa weeye dulmi dhulkayga ku jooga axmaarkaan diidanahay waxaan soo dhaweyn Tigray baan soo dhaweyn Oromaan soo dhaweyn Beeshaangul Kumis baan soo dhaweyn Harari baan soo dhaweyn Dhabuub baan soo dhaweyn Siidaamaan soo dhaweyn Uraagaan soo dhaweyn Gambeelaan soo dhaweyn dhammaan qoomiyadaha Itoobiya kala soo dhaweyn oon axmaara ka ahayn axmaarana Itoobiya waa 110 milyan 3 milyan ama 4 milyan ba axmaarada rasmiga waa Goojaam iyo waxa weeye Baardhaar oo qayb iyo Koondar oo qayb aha waxa weeye qoomiyada waxa soo baxay aan axmaara ahayn oo xoog lagu haystay oo waxa weeyaan aan axmaara ahayn arkina karin yaa ka soo baxay oo 20 milyan ay sheeganaysa ka soo dhaxay marka waxa weeye 3 milyan 4 milyan waynu iska qaban annagoo Itoobiya iska qabanayna geed baan ku xidhaynaa geeska Afrika wareeriyeen Itoobiya wareeriyeen nabadiid weeyaan axmaar waa nabadiid waa naftanya marka waxa weeye Itoobiya oo wada socota yaa geed iskaga xidhi ama undurmaan laajah ku noqoto ama kay Goojaam iyo Baardhaar iyo Goondar waxa weeyaan canjeeradeeda ku dubato laakiin finfinne diradhaba jigjiga maqale Addis Ababa xajeeda Awaash Naazireed dhulkaas wuxuu noqon dhul qoomiyadaha kale ay ku raaxaystaan oo walaalo ku yihiin oo ka wada socdaan oo tareenkooda iyo diyaaradooda iyo isu duulimaadkooda iyo wada socodkooda iyo saaxiibtinimadoodu ay socon hayso balse axmaaro qarniyeyna soo gumaysatay oo aabayaasheen laysay oo xoolaheenii laysay oo waxa weeyaan ina rushaysay oo ina xasuuqday oo ina ogolaynayna Itoobiyaanahay oo bahjeedkeena cunaysay oo waxa weeye qoomiyadaha Itoobiya bahjeedkeedii oo dhan ay cunaysay oo ina gumaysatay oo ina wax baranno ay noo diiday oo magacyadii ay ummadii Itoobiya ka bedeshay xataa oo inay kiristaan inay magaranaysaa waxa weeye dhaqankooda wax maar sheegto qofku iyo xataa isku dayday oo samaysay masa dhici doonto waxa lagu jiraa meel aan hadda cidna la gumaysan karin taariikhan cidna la gumaysan karin oo laga aqoon badan yahay oo laga aqli badan yahay oo laga waay aragtisan yahay oo waxa weeyaan ayada oo uraysa mataqaana waxa weeye Goojaam iyo Goondar injirtaas iskaga ma garanaysaa gurtalka aad iyo aad baa maatay maxaad leedahay imiga matalan imiga marka Axmedow waxaan leeyahay way soo dhow yihiin TDF iyo OLA walaalaheen noo soo halgamay naftood horayaal u baahan in aynu kala hortagno xaleemo qoyan xoolo hilib biyo wax aan heli karo iyo wanaag inaan kala hortagno u baahan oo darteen dabka u soo galay oo darteen u hor istaagay mataqaanaa beebeega iyo roundka darteen magaranaysaa u galay oo waxa weeye inoo soo dhintay intii soo hadhay guulwadayaasha ah waxa weeyaan naftood hurayaasha naftood huris naftooda inoo hureen kali Tigray naftooda mayna u hurin kali Oromo mayna u hurin Itoobiya oo dhan bay naftooda u hureen Soomaali bay u hureen Anfar bay u hureen Beeshaangul bay u hureen Gambeele ay u hureen Siidaan iyagu waxa weeye dhammaan qoomiyadaha Itoobiya iyo naftoodii u hureen markay naftooda u hureen waa inaan ka horgeyno biyo caano iyo mataqaanaa hilib iyo waxa weeye xaleemo qoyan waa inaan kala hortagno oon soo dhaweyno oon jigjiga ku soo dhaweyno oon waxa weeye ku soo dhaweyno nagob qoraxay jarar waxa weeyaan ii sheegay doollo iyo liibaan aan ku soo dhaweyno shabeelle iyo dhaawo aan ku soo dhaweyno oon geel dhale ugu lisno oo magaranaysaa waxa weeye faafan xasiideeda iyo
magaranaysaa waxaa weeyaan aan ku soo dhaweyno oo gobol kastaba wuxuu hodan ku yahay aan ku soo dhaweyno oo waxaa weeye heestii beerbeer saboodkii lagala hortago heestii beerbeer saboodka lagala hortago calamaantii wada socday ee walaalaha ahaa ee sagaalka calan ahaa lagala hortago oo lagu soo dhaweeyo oo waxaa weeyaan Ethiopia walaal ah oo isjecel oo tii la yaqaanay ah ay timaado taasaan u durbaantumaynaa taasaan soo dhaweynaynaa taasaan u nahay cid hor istaagi kartana ma jirto wiil yaroo madax tiiran oo isaad iyo telefishin magaranaysaa xajir ka dhaanaareey oo shalayna xalana ka yimid xalanihiisa xataa kuma noqon karo sharcigaana la hor keeni waxaana weeyaan nambarka 39aad buu kaga jiraa liistiga dambiilayaasha ee dalka 39 nambarka 39aad mise 38aad buu kaga jiraa sharcigaana la hor keeni waxaa weeye Israa'iil hadduu galo Interpol way ka soo qabanayaan meel kasta ma badbaadiyaan meel ay ku badbaadiyaan mana aad iyo aad baa mahadsan tahay maaragtay telefonka line ku marxaban aad iyo aad baa mahadsan tahay maaragtay xagga iyo canfartaan gali doonaa insha Allah maxaad ka odhanaysaa dhinacan canfartii waatan maaragtay cali muuse maanta maxamed yaayu maanta ciidankii canfarta aad baad mahadsantahay axmedow aad baad mahadsantahay axmedow canfarta haddaan ka hadlo warka guulo waaweyn oo taariikhda xusi doonto oo warbaahinta caalamka oo dhan hadda ku jirta lagana sii dayn doono taariikhdana adduunkana ayna ka dhicin yaa waxaa weeyaan yaad arki doontaan hadda 137 kilomitir keli ah Addis Ababa ama Finfinne loo soo jiraa waa dhinaca magaranaysaa Dabra Burhaan waanad u jeedeeno waxaa weeye dagaaladii ka dhacay ka soo bilow 3 hawlgal ayaa soo dhacay oo uu kow ka ahaa Alula 1 waa gobolka Tigray kii lagu xoreeyay Alula 2 wuxuu ahaa ama Alula hulad wuxuu ahaa kii meesha la dhihi jiray waldiya ku joogay ee ka soo bilowday magaranaysaa meesha la yiraahdo Almaata ka soo bilowday waxa kii saddexaad oo waxa weeye lagu soo afjaray ama lagu qabtay magaalooyinka waaweyn ee Wallo ee caasimada Wallo ay ka mid tahay ay ka mid tahay mataqaanaa waxa weeyaan Kombolsho ay ka mid tahay mataqaanaa Kasima ay ka mid tahay magaranaysaa magaalooyinkan faraha badan ee ka mid dhulka canfarta ee Jirfa iyo magaranaysaa zone hulad zone Andi ay ka mid tahay waxa weeyaan kaliya hadda wadada ilaahay xilifka ka mareysay magaranaysaa deegaanka canfarta loo soo gudbaa deegaanka Soomaalida ay hadda soo gaareen deegaanka hubkan waxa laga maqlayaa gawaani iyo waxa laga maqlayaa magaranaysaa meesha la yiraahdo Garmeytu waxa laga maqlayaa ii sheegay meesha la yiraahdo Cadeyto iyo Cundufo intaba deegaanka hubka waa laga maqlayaa laamidan uu soo gaaray waan soo dhaweynaynaa dhinaca canfarta haddaan ka hadlo ummadda canfareed madaxweynihii hore canfarta khayr allaha siiyo waxa weeye taliyihii wakiil badan oo ciidanka new booliska canfarta ah waxay ka garab dagaalamayaan ama ay garab socdaan ciidanka TD ciidanka OLA maxamed yaaya baa la yidhaha ninka ciidanka hogaaminaya shacabkuna wuu taageersan yahay shacabkuna EPRDF iyo beerbeer saboojkii iyo nidaamka sharciga ee kala magaranaysaa waxa weeyaan qoomiyadaha Ethiopia uu soo dhaweynaya wuuna dareensan yahay laakiin wiilkan yar ee madow ee refref kale la yiraahdo waxa weeyaan awal arba iyo teamka la socda waxa weeyaan murtadka abiy magaranaysaa waxa weeyaan uu meelo kala duwan ka keenay waxa weeyaan way soo afjarmayaan waana la soo afjarayaa samara gacanta lagu dhigayaa asayta gacanta lagu dhigayaa gawaani gacanta lagu dhigayaa awaaq gacanta lagu dhigayaa garmeytu gacanta lagu dhigayaa Cadeyto gacanta lagu dhigayaa Cundhufa lagu dhigayaa dir dhawaa lagu dhigayaa hadda gaaliyaas dambeeya shacaya waxa weeyaan shinila gacanta lagu dhigayaa dambal baa gacanta lagu dhigayaa jijiga lagu dhigayaa xarar baa lagu dhigayaa waxa weeyaan Naazreed iyo Finfinne baa gacanta lagu dhigayaa Ethiopia wada socotaa dhulkaana gacanta ku dhigi doonta Liibaan iyo Doollo ugu dambeyn feer baa dhaantada lagu timi doonaa aad iyo aad baa madsantay walaalka aad iyo aad baa madsantay adaa mudan aad baa salaamay okay canfaro jardamid
በዚህ ሰዓት በዚህ አመት ቱዋኒ ነው ያለው በፈረንጅ አቆጣጠር ጮቆና የሚፈልግ አንፈር ይኖራል ብዬ እኔ አላሰብኩም። ዛሬ ግን አየናል። በጣም የሚገርም ነገር ነው። ኃይለ ሥላሴ መመለስ አለብኝ። ግመለያ ቃል ኃይለ ሥላሴ ግመለያ ቃል ምኒልክ ሚሉ አንፈሮች አሉ እስከ ዛሬ። ንብ ሚላኑት ንብና የሆነ እንትን ማን ነው ሶንሳ ነው ብለው በአማርኛ በኦሮሞኛ ሶንሳ ይባላል። ሁለቱም ማር ይሰሩ ነበር አሉት። ነብያችን የነበረ ጊዜ ማር ይሰሩ ነበር ሁለቱም አሉት። እና ያ ሶንሳ የሚባለው ነብዩ ሞተዋል ብሎ ሰምቶ ትተዋል አለ። ማነው ማር መስራት ትተዋል። በቃ የሆነ ነገር ይሰራል። ያ ነገር ለልጆቹ ነው የሚሰራው እንጂ ትተዋል። ንብ እስካሁን አልሰማሽም አሉት። እስካሁን ማር የሰራሽ ነው አሉት። አንፈር ልክ እንደዛ ሆነ እኮ። ምኒልክ የሚፈልግ አንፈሮች አሉ ዛሬ። በየቦታ ሰላም ሰልፍ ወጥቶ ሞ አንበሳ ባንዲራ ይዞ የሚጨፈሩ አንፈሮች አሉት። ዋይ አይገርሙም እንዴ? አይገርሙ? ቆይ እስቲ እኔ በጣም ይገርመኛል እኮ። ስለዚህ ዛሬ እኛ እንደግፈው መሐመድ ያዮ እንደግፋለን። የአንፈር ዲሞክራሲ ኃይሎች እንትን ነው የሚባለው የሉሲ እንትን ነው በደንብ መደገፍ አለብን። ይሄ ደግሞ ባትፈልጉም ህዝብታት ዓፋርን ትግራይን ኣብ ልዕሊኦም ንዝተኣወጆም ወራራትን ወጻዕታትን ንምምካት ናይ ሓባር ቅልፅን ፈጢሮም ጸላእቶም እናደምሰሱ ዝመፁን ዘይሃስስ ታሪክ ዝፈጸሙን ወነንቲ ቅያን ጅግንነትን ህዝብታት እዮም። እዚ ድማ ጸላእ ብሓባር ናይ ምድምሳስ ወርቃዊ ታሪክ ክልቲኡ ህዝቢ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ታሪክ ምዕራፍ ዝተፈጸመ እዩ። እንሆ ድማ ሕዚ ተወሳኺ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ወርቃዊ ታሪክ ዝድገመሉ ግዜ ብደመኛ ጸላእ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድን መላፍንቱን ዝፍሓስ ግፍዕን ጆኖሳይድን ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ተጋሩን ዓፋርን ብምፍጻሙ ስዒቡ ሓበራዊ ጸላእ ምዃኑ ኣረጋጊጽ እዩ። ወራሪ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድን መላፍንቱን ንምድምሳስ ህዝቢ ትግራይ እናካየዶ ኣብ ዘሎ ህዝባዊ ኩናትን ዘመዝግበ ዘሎ ዓወትን ናይ ሓባር ቅልፅን ፈጢሮም ወጻዕ ህዝቦም ንምንጋፍ ወታደራዊ ታዕሊም ወሲዶም ንምረቓ ከም ዝወቕዑን ናብ ግንባር ወፊሮም ጸላእ ንምድምሳስ ዓቕሚ ከም ዝረኸቡን ተመረቕቲ ሰራዊት ዓፋር ክፍለ ሰራዊት ሉሲ ገሊፆም። ፋሽስት ተባልን ውልቀ መለኽትን ኣብ ልዕሊ ሉሲ ይባላል ህዝቢ ዓፋርን ዘውፅሑ በደል ይፍለጥ እዩ። ዝሰፍ ዝበለ ንምድምሳስ መናእሰይ ትግራይ መናእሰይን ዓፋርን ናይ ሓባር ቅልፅን ፈጢሮም እቲ ደመኛ ጸላእና ንምድምሳስ ኣብዚ ኣብ ስልጠና ይርከቡ መናእሰይ ዓፋር እቶም መናእሰይ ከም ዝገለጹልና ነዚ ደመኛ ጸላእ ህዝብና ዝኾነ ህዝብና ዘጋፍዐ ዓድና ዝደፈረ እቲ ወጋ ዝኸፈልናሉ ስርዓት ፌደራሊዝም ዘፍረሰ ንምድምሳስ ሓቢርና ክንቃለስ ብምሉእ ወነ ብናይ ባዕልና ድሌት መፂና ኣለና ምስ መናእሰይ ትግራይ ኮይንና ምስ ንምድምሳስ ከም ዝስለፍ እዮም ገሊፆም ዘለዉ። የሉሲ ወታደር ናቸው እንሰማለን። ቆይ እስቲ አንተ ቆይ እስቲ አትደውል እንትን አለኝ። ቆይ እስቲ ቆይ መደወል አያስፈልግም አሁን በዚህ ሰዓት። እዛ ስንወጣ ሆይ ብለን ወጥነው ስርዓቱን ጣልተን ነው። እዚህ ውስጥ አሁን ከምታየው ወጣት ውስጥ እህቱ ወንድም አጎት ያልተገደለበት ወጣት የለም። ሁላችንም ለዛ ብለን ነው የወጣነው። ስርዓቱን ጣልተን ነው የወጣነው። ስንት ወጣቶች ሬሳ የቀረ ጭንቅላታቸው ተቆርጦ የቀረ በሰንጃ አለ። ሪፐብሊካን ጋርዶች የገደሉብን ልጆች አሉ። ማንም ቤታችን ደግሞ ይሄን ስርዓት ጣልተን እስከወጣን ድረስ ማንም ይሁን ማንም መረጥ ነው እዚህ የመጣው። ሁላችንም ሳንወድ በግድ ይህን ስርዓት እስካልፈረሰ ድረስ ማናችንም እንቅልፍ አንወስድም። የአብይ ስርዓት በአፋር ህዝብ ላይ ብዙ አይነት ጫና ፈጥሯል። አንደኛ ፌደራሊዝማችን አጥፍቷል። በተለይ በትግራይ ህዝብ ላይ የደረሰው ጫና መቼም ቢሆን ህሊና ያለው ሰው የማይረሳ ነው። እናቶቻችን ተደፍሯል፣ ንብረታችን ተዘርፏል። ከዛ በበለጠ ደግሞ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትን አስደፍሯል። በሻዕቢያ ወታደሮች በሶማሊያ በኢማራት ድሮን ሉዓላዊነታችን አስደፍሯል። ከምንም በላይ ብቁ ስልጠና አግኝቻለሁ። ከትግራይ ወጣት ጋር ያለው ስርዓት ለመደምሰስ እዚህ ድረስ እንመተናል። ከትግራይ ወጣት ጋር ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ከጎናችን ቆሞ
ያለውን ስርዓት ያለብንን ጫና ፍሪደማችንን ለማስመለስ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ከጎናችን እንደምንቆም ተስፋ እናደርጋለን። እቶም ተመረቕቲ ሰራዊት ዓፋር ፋሽስት ወራር አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጽሞ ዘሎ ግፍዕን ጀኖሳይድን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓፋር እውን ይደግሞ ከም ዘለን እዚ ንኸብቅዕ ድማ ንምቅላስ ከም ዝወሰኑ ሓቢሮም ወታደራዊ ስልጠና ወሲዶም ንዝተመረቑ ሉሲ ዝብል ስያመ ዝተዋሃቦምን ኣባላት ሰራዊት ዓፋር መልእኽቲ ዘሕለፉ ምክትል ኣካባቢ ፌደራሊስት ሓይልታት ዓፋር ተጋዳላይ መሐመድ ያዮ ለው ህዝቢ ዓፋርን ትግራይን ኣብ ምርጋጽ ደመኛ ጸላይ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ከም እንድምስሶ ዝለዓለ እምነት ኣለኒ ክብሉ ገሊጾም ዓፋር ፌደራሊስት ሓይልቲ نمي هايتو دو عاسي مسكت ديوت حلتا أساكو أكل أبنماي أساكو إنام تحباي أبو تحباي أقبوك بوكاي بلتقين نجي حلون البحثة تنيمكي نانو أوقت تنجي حلونه بلتقين دولة بيسنام فردتين تا انته توعيه تنيتان مسكت دالي عفر عنداني تياساو كاكل دو عسنكي عفر فدراليست حيلها سعونتنا نوتي كاي عفر فدراليست حيلا اسم تكتيني يابا مراكي انكحسيتا مراتيك كاي دو عيسى مراكي دو عيسى مراتيك كتين حساكو أن لحيلوتي تجينينه انك عروفتيني غرفتيني سيني كارحي فدراليست حيلتات عفار هزبن منجستن تجراي نربحن حلواتن هزب عفار زخفلو زلو كبر مسواتن زي تحلل قالسن بمنعاد نقلتو هزب قالسي تتناقيرو كقصلن هزبن منجستن تجراي ماركتن كانفر هايلوچ ديموكراسي هايلوچ غا مقوم አለባችሁ ይሄ ከነፍጠኛ ሽርጉድ ምትላቸው አያዋጣም ማንም ማስቆም አይችልም TDF እና ኦላ እነኚህ ኃይሎች ዲሞክራሲ ኃይሎች ናቸው ማንም ማስቆም አይችልም ወየውልህ ታለቅሳላችሁ በኋላ ልጆቻችሁ ዝም ብላችሁ አትጨርሱ አንፈሮች ከሰማችሁ አሁን ስንት አንፈሮች ነው ያለኩት ብዙ ወጣት አንፈሮች ተራገፉኮ እንደ ጥቂታል ተራገፋችሁ ድሮም እንትን የላችሁ ፖፑሌሽን የላችሁ ቀነሳችሁ ሀፍተ ቀነሳችሁ ማለት ነው ዛሬ ምኒልክን ስርዓት አንፈር ህዝብ ይፈልጋል ዛሬ የኃይለ ሥላሴ ስርዓት አንፈር ህዝብ ይፈልጋል ህልም ነው ወይ እውነት ነው ሰላም አብሰል ሲወጡ በልጅም ላይ ሆራሞቹ ገንዘብ ስለተከፈለለት የነፍጠኛ ባንዲራ ይዞ مزورو عنفروت عالوت أيسا كالم والله أيسا كالم نجي عبر من ناي هونال عرفو كوش بلو زاري إنيا الله كو يادان إثيوبيا بير سب بتي بيلف مكنات نوكو الله يادانو لمن هنا تاني نغاقر لمن نواش هالن TPLF باي نورو زاريكو تواتن نبركو بنفتنيا TPLF إنا أولا باي نورو زاري إثيوبيا بير سبوش موتو هالكو ريدي سلا الله كو يادانن بTPLF مكنات نوكو Okay, you gotta go. هلكن ما مش هذا تك هلكن ما مش هذا مش فقي وحلوني ما أنا وين شيء قفي عيتما وين حدا ما عند باتي كني هلكن أنت أبنا يا وبلوك ما كقولنا يا حركة كقولنا يا أنا جايز كايستا أنا جايز كايستا TPLF باي نور أورومو ليبريشن فرونت باي نور زاري يدني كمان نبرة بتلاقيم TPLF باي نور زاري إثيوبيا بير سوج مبال أي تايم نبركو لمن نواشالن واي لمن نواشالن غرفي وسدن نبركو TPLF باي نور زاري الله يادانو لإثيوبيا بير سب الله يادانو TPLF سلامتا مجمراو النسون برا يادانو درج تواقتو درج يفرسو النسوناتشو
استيقظت عند جزء إنا عند جزء عند سو كوتش إنكلاتو دفينو ومن دينو ملو وين زاري يتولون سووا شالو تندي من سر عمارة ولد متو عمد عمارة مبال إنني نفتنيوش مبال ولد متو عمد يصير إثيوبيا لاي نبروت عند منجر سرت عند منجر السرت وكان توليلا نجر زرفيا بيتشا نبر ملز زيناوي لك إن دقبا إتشين عجر أسفلت بأسفلت هونش فوق بفوق هونش إرجعتوا ليلة هونه أهون ده مومتو بسوست عمد نفتنيوشو بسوست عمد عفر رسول يهولو نجر بهاي سبات عمد يتنقبا يجنبا يبيع يجنبا بسوست عمد فرسود زاري إثيوبيا بانك عند جنزب يلم داوم جنزب تونا وركم يلم لمن هنا أننا قاعر TPLF إن ده تفرق شاشة وست سبسبو ينبرو دركو تعلود يا كشاشة نوكو يعني تفر بيكن انتن كالا سدا كشاشة وسبسبو بشتنيا هنا EBRDF يتسبب كشاشة أبي ما نبره يان كشاشة نبره زاري إثيوبيا نزب إثيوبيا بير سبوج مرسي هونو فاشتا أبي أحمد نو فرسوا على إتشناغر زاري إقونومي يلاتو سومي بلا أتو دورو بهيوتا يبلونو آية جوارن دورو سندن دبلو إثيوبيا وتاتر تبيه دورو كان نفسه أتشيك إيك يبلو مانو فاشتا أبي أحمد وتاترنو سلزي عن فروج إرفوت نقر رالو إرفوت بوالا تالك سالاتشو تاو لعن فريس بكاسباتشو كنفتنيا قوني قوماتشو والله تالك سالاتشو كيتوبيا بير سوج قام قوم علبت أمارا يامنال يعفر كليل آيامنو أورومو كليل يامنال آيامنو سومالي كليل يامنالو آيامنو يفرس نوملوت كنسو قاتي قوم على تارا من أين الجذبة عنفرنو يملك باندرا هيزت تهدالله إنه ملو الله يادانا إثيوبيا بير سبوج TPLF نو TDF نو سلازي TDF قوني مقوم على بين نقر علوين أني قوم كالاتو مسابسب إجاچو مسابسب على باچو كال سبسباچو جن بجد تاسبسب على باچو إهن هل مياقوم هايل يلم ما وقع على باچو زاري چقونات يفلقال عن فريز إنه بطعم قرنمكو أورومو حزب چقونا يفلقم سومالي حزب چقونا يفلقم دبوب چقونا يفلقم تقرأي لجو چقونا يفلقم عن فركيد نو بطعم مقرمي نقر عدلم انده مقيمالاچن منلك ياقال تلالاچو انده أتافرم تنش أتافرم انده أي قربم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام أحمد بشير با ها هذا الوقت صلاني أول ما لنا هذا وحكى الله صلى يعير تركيا أذكر الله كاينه آمين 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 إن شاء الله آمين هيا كسر حلقة كانت كشرتنا وحلقة اللوبة هيا آديات دات كانت المن كشرتنا هشيسية ما ولا شيء سنة إن شاء الله وإسكان ما ننسى شيكادو إثيوبيا لا وحكومة بالي ما أنت نك قوي كنا شينا إنه قندر كنا تماها عاديات مركاي وهو قرب تاجرنا هاي رجعنا على ما قوي كسر دوية عنفر محل هذا أفر ولا عليهم ما يضغط واحد تاجر سنتين نفتني تاجر سنتين ما حد كل أردن له دردار سينا أفر ولا عليهم الله سبحانه ذيه آمين الله سوادي ها تاسعو وقفي عنه السلام عليكم عليكم السلام عاديات بمت سلزي عنفروج أردت النشو ما تافرو من دي
ግመላችን ምኒልክ ያውቃል ግመላችን ኃይለ ሥላሴ ያውቃል ግመላችን ታዲያ ከእናንተ ግመል ይሻላል እንዴ እኔ በጣም ገረመኝ አንፈሪስ ቢኖኮ ምን ሆናችሁ አበዳችሁ ወይ ምንድነው ሰው ልጅ ከኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ ነፃነት ነው የሚፈልጉት እንጂ ጮቆና የሚፈልግ ህዝብ ያየን አንፈር ብቻ ነው እኮ ያየን ነፍጠኛ በላይነት ይፈልጋሉ እናንተስ ምን ትፈልጋላችሁ ቆይስ አቦ አፋን ኦሮሞ አፋን ላይፊ ኦሮሞ ሆዱ ጅራ ሰኒ ማልፊ ወጎጉ ኸይስማን ቡሳ ሃተሁ ላይፊን ኦሮሞን ኬኛ ላይፊን ሳኒ ዋን ሆዱ ቴፍ أنا هنجنا سنرا كبا خرا خنا ناديسا خرا فان سوماليتي في أفان برا لا يفيك أورومون هندلي تومي أنا تو بكسن درجة يودن دي سندجي فدا لكن نمني الرهدون أمتا عنفري في أمتا سوماليتو غي سجرا هاته نتلاقي في كينيا نكابنا أورومون بكون داو لا في نكابنا إن شاء الله غاري دا سني وجوج سنيفين كيس بوسا أبصا لكن أبصو ما درجة لكن إذا قدنا أفان سومالي فانا مرات تفو فاجج سني ومن عنفر الرام هاي لسلاسي في ناس يجي تجرن قال لي خيني مليك بيخاجة تجرن أكنو تون كورسان فين عاجة تجرن نمني أكنا نجري جه تكاهيان أنا الدنيا تركيس وننا عجائب سجرو تنا ومن عنفر فيا كمان مو برهان اوكي بقى تيرا لا من شكراله اني اسوت على من شكريلم اني اسوت على السربيتو اني كانوا يالو بتسد انت توت على انجي اني ما الوطن انت كنت توت على تسد بنياله توت على اني كن الوطن لا يفلانو يعني سلازي እንደዚህ አይነት አንፈር ይኖራል ብዬ በፍጹም አላሰብኩም ነበር ግን ዛሬ ሰላማዊ ሰልፍ አይፈሩም እኮ ትንሽ ሰው ይፈራል አይደል እንዳውም እንትን ይዞ ሰላማዊ ሰልፍ የኃይለ ሥላሴ ባንዲራ ይዞ ሰላማዊ ሰልፍ ይሄዳል አታፍሩም እንዴ ምንድነው ምን አይነት ነው እንትን ሆነ ባክ ወደዛ በላ መሐመድ ያያ ተከተሉት ጀግና መሐመድ ያያ ጀግናው መሐመድ ያያ ወታደሩም ሰርቷል እንትና ሁሉ ነገር አለው አሁን እናንተ ሆዳሞች የአንፈር ሆዳሞች በሆዳቸው ትሞታለ እንጂ እንደ አንፈን ማነው መሐመድ ያያ ጀግና ብትሆኑ ጥሩ ነበር መሐመድ ያያ ያለፈው ፕሬዝዳንት አልሐጂ ስዩም ብዙ እንትን አላችሁ ምኒልክ ልጆች አይ አንፈር ምንድነው ምን ሆነ በእናታችሁ እንዴ ሊያርግ ታራ ምን ላርግ ታራ እኔ በጣም ይገርመኛል እኮ መሄድ አለባ ዋትከ ሰሆነ ሰሙት عاد ነው ሰሆነ ሰሙት ዳላ ፍራንሲስ ጎ عيدنا عاد ነው ሰሆን ዳፍ ሶማሊ ጎ عاد ነው ሰሆን አማርኛ ብትሰደም ብትሄዳለ ሶማሊኛ ብትሰድ ትሄዳለ ግን አፈት ብሽር ዝንላል ስለዚህ ነው የምለው እንታሳኒ ወሰድ ገብጎይን ያ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ